nin ay bulshadu jeceshahay oo xiliyadan xanuunka xabsiga ku jira oo la yiraahdo Cabdimaalig Muuse Coldoon kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta dunida daafeeda ka joogtaan waa mar kale iyo kilib cusub halka aad naga daawanaysaan waa kanalkeena Hodan Fashion maanta waxaan idin soo bandhigaynaa Maxamed Saciid BK oo ka codsanaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland inuu la soo daayo Coldoon ila soo daawada kilibkan marka dambe wixii faahfaahina aynu ka bixin doonaa abibo codsi baan hawada marsanaya caawa waayo waa dhowr ciidood baa iskalay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi waxaan cod dheer kaga codsanaya nin ay bulshadu jeceshahay oo xiliyadan xanuunka xabsiga ku jira oo la yiraahdo Cabdimaalig Muuse Coldoon madaxweyne ninka inaad cafido ayaan aad u codsan lahaa iyo maxaabiista xiran ee aan kiiska adag ku xirnayn inuu sii daayo Cabdimaalig aad baan u codsan lahaa ma sha Allah ha waayo waa la tabay dhul badan oo waqtigan maanta taagan yahay wax ka qaban jiray waa dadka dar Ilaahay u shaqeeyay madaxweyne ninka labada ciidood ee iskale ee dhinmay iyo farxadda ciidka iyo xanuunka dhibaatada badan leh dartii ninka nagu gabi ahaanba baaqani ma baaq hadda maanta kaliya la dirayo laakiin waa fanaankii u horeeyay ee ka dira ee af fanaan ku hadla ee yiraahdo cafi Cabdimaalig Muuse Coldoon cid walba way wada ogtahay waxa weeye suxufiga kaliyata ee dadka danyarta ee waxba haysan ee tabaalaysan u soo bandhiga walaalkiisa waxaysta marka waxa weeyaan waa muhiim in la soo daayo umada Soomaaliyeed oo dhan ee afka Soomaaliga ku hadasha way ka dhididay waana ka murugootay waana xabsigiisa way ka xumaatay maadaama uu yahay qof bulshada dhan wax u tara waxa jirtay muuqaal aad iigu saameyn badnaa oo ahaa nin xanuunsanayay oo silsiladii agtiisa kala goysay waxa markii dambe uu ninkii noqday nin caadi ah oo caafimaad qaba oo guri ka soo kacaya oo soconaya waxa uu sameeyay guri ay u dhisay waa uu ka soo saaray meeshii dharkii uu jeexjeexna uu ka bixiyay dhar caadi iyo nadiif uu xidhay umada ayuu ka mid dhigay Soomaaliyeed ayuu ka mid dhigay waxa aan kale aan la iloobi kareynin maahan mid iyo laba hadii aan maanta oo dhan la yiraahdo waa la tirinayaa Cabdimaalig Muuse Coldoon maaha mid marnaba la dhameystiri karo waxyaabaha uu bulshada u qabtay marka waxa weeyaan qofka marka uu nooca yahay amba uu memberka ka taagan yahay umada Soomaaliyeed afka Soomaaliga ku hadasha meel kasta joogto ma aha in loo eego dhinac siyaasadaysan ama Soomaaliland buu ka soo horjeeda ama waxyaabo noocaas ah waayo kiisaska loo haysta waa kiisas noocaas ah maadaama aanu jirin qof buuxin kara booskiisii waxa muhiim ah oo lagama maarmaan ah inuu codsiga madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland hoos u eego maadaama oo lagu jiro bil Ramadaan maadaama oo lagu jiro bishii barakaysnayd 10kii dambe maadaama intaas oo dhan xabsi uu ku xidhnaa oo aan la isweydiinin maxaa uu ku sugan yahay waayo waxa qurux badan qofkii marka aad kiis ku xidhatid kiiska aad ku xidhay waa inaad qiimaha uu leeyahay ogaataa iyo qofkani qiimaha uu taagna Cabdimaalig Muuse Coldoon qiimaha uu ka taagan yahay bulshada Soomaaliyeed gabi ahaanba meel kasta gabi ahaan joogan oo afka Soomaaliga lagaga hadlaba wala wada og yahay marka waxaan ka codsanaa mudane madaxweyne inaad cafis u fidisid ninka maadaama oo xukunka ku dhacay oo aan la is oranaynin qalad ayuu ku dhacay ama gardarro ayuu ku dhacay marnaba qalad iyo sax wixii uu ku dhacayba inaad cafisaa waa muhiim waana muqaddas waayo waxa weeyaan bil Ramadaan teeda kale 18 May buu ku xidhan yahay wax dambiyo oo weyn oo noqon karno waa la taaban karaana ma jirto marka waxaan ka codsan lahayn maxaabiista uu ka soo qaadi doono xabsiga madaxweynuhu cafin doono ee badan inuu ku jiri doono mudane madaxweyne waxaan marnaba ka daali doonin inaanu ku nidhaahno inaad Cabdimaalig Muuse Coldoon cafisa waa muhiim noo cafi waa codsi aanu codsanayno waxna waa wax bulshadu doonayso waxna waa wax hal shakhsi doonayo marka Cabdimaalig Muuse Coldoon waxa doonaysa gabi ahaan
bulshada Soomaaliyeed meel kasto ay gabi ahaanba joogan marka waxaan kaaga codsanaynaa af naxariis leh ayaan ku leenahay mudane madaxweyne mar labaad iyo mar xigtaba عافي عبد الملك موسى علدون ما داوا uu yahay muwaadin Somaliland oo aan jirin duruuf aan oran karo uu ku xidhnaan kara maadaama ay u baahan yihiin bulshadiisii danyarta ahayd oo aan jirin ilaa hadda booskii isaga ahaa wax buuxiya maadaama aan jirin dad buuxinaya booskiisii waxaan mudane madaxweyne ka codsanaynaa cod dheer iyo cod gaabanba in aad soo diiso عبد الملك موسى علدون waana codsi bulshada Soomaaliyeed oo dhan ay u wada tahay ay soo wada direysay bilihii u dambeeyay marka waxa weeyaan lagama marmaan qofka bulshada wax u qabanaya ama wax u taraaya in la weydiiyo madaxweynaha cafin ama ha ku qaldanaado ama ha ku saxsanaado kiiskii lagu xiray marka waxaan idin ka codsanayaa dhamaantiin asxaabtayda qaaliga ah ama walaalahayga qaaliga ah dhamaantiin waxaan idin ka codsanayaa inaad sii share gareysaan clipkan si uu u gaaro cid walba oo kiiskan ku shaqale ama kiiskan u haysatay Cabdi Maalig Muuse Coldoon waynu wada ognahay Cabdi Maalig Muuse Coldoon booskiisa qof buuxin kara ma jiro kaliya waxaad nagu caawin kartaan waxa weeyaan inaad sii share gareysaan la wadaagtaan asxaabtiina iyo cid kasta oo kiiska Cabdi Maalig Muuse Coldoon ku shaqale si uu u gaaro aad baad ugu mahadsantihiin waxa kale oo idinka codsanayaa asxaabtayda qaaliga ah inaad channelkaygan Hodan Fashion subscribe saartaan kambaleelkana furataan si aan wixii warbixina ama warar aan idinku soo gudbino aad baad ugu mahadsantihiin wixii fikrina comment-ka nagu reeba aad baad ugu mahadsantihiin daawashada aad daawanaysaan waxaan idinka mahad celinayaa waqtigiina qaybta kamid ah aad siiseen waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala